عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasha qiimaha iyo sharafta leh waa casharkeena lixaad ee barashada aaladda scientific calculator-ka. casharkeena lixaad maanta waxaan ku qaadan doonaa matrix-ka sida loo geliyo labadan scientific ee kala ah scientific-gan cadaanka ah ee la yiraahdo ES plus scientific calculator iyo scientific-ga madowga ah ee la yiraahdo MS plus scientific calculator. labadaas scientific waxaan ku hormari doonaa scientific-gan cadaanka ah. waxaan matrix-ka wuxuu leeyahay qaybo badan. waxaan soo hormarin doonaa laba qaybood oo kala ah sida operationka for operationka ama afarta xisaab fal loogu sameeyo scientific-ga cadaanka ah iyo sidoo kale sida transpose loo sameeyo. fiidiyogeena xiga ayaad ka heli doontaan matrix-ka determinantigiisa iyo inversigiisa. okay, markaan rabo inaan geliyo scientific-gan cadaanka ah ee MS plus la yiraahdo operationka ama afarta xisaab fal, waxaan taabanaynaa mode key, kadibna waxaan dooran doonaa number 6 oo ay ku qoran tahay matrix. okay, marka intaa gelino waxaa noo soo baxa matrix A, matrix B iyo matrix C. matrix A waxbaad ku kaydsan kartaa, sidoo kale B iyo C na la mid. hadda matrix A ayaan wax ku kaydsanayna, waxaan taabanaa matrix A oo number 1 ah. okay, waxaa noo soo baxday order-ka matrix-ka uu yeelanayo. haddii uu yahay 3 by 3 number 1 aad xulanee, haddii uu yahay order-ku mid kalena waxaad dooran doontaa nambaradan kale. annaga maanta waxaan ku shaqaynaynaa number 5 oo ah 2 by 2. number 5 ayaan dooranaynaa, kadibna waxaan gelinaynaa matrix-ka oo waxaan gelinaynaa 2 3 sidoo kale 1 godka ugu dambeeyo ah 4. kadibna all clear-ka ayaan uga laabanaynaa. matrix A xog ayaa noogu kaydsan. waxaan rabnaa sidoo kale matrix B inaan haddana xog ku kaydsano. waxaan taabanayaa shift 4. kadibna waxaa ii soo baxday 8 option. optionka koowaad waa xog cusub geli DMI. matrix A xogtii kugu kaydsaneed, matrix B matrix C xogtii kugu kaydsaneed iyo determinant haddii aad rabtid number 7. haddii aad rabtid determinant data xogtii aad soo gelisay meesha aad ka arkaysidna waa number 2. matrix B haddii aad rabtid tirada aad soo geliday iyo matrix-ka answer-ka ama jawaabta ku soo baxda matrix-ka u dambeeyay iyo number 8 oo ah transpose. hadda waxaan gelinaynaa number cusub oo xog cusub ah, number 1 ayaan taabanaynaa. kadibna matrix A xogaan ku soo kaydsanay, matrix B ayaan gelinaynaa oo number 2 ayaan taabanaynaa. kadibna sidoo kale number 5 oo ah 2 by 2 ayaan taabanaynaa. okay, waxaan gelinaynaa matrix B 4 ayaa ugu horeyso, 2 ayaa ku xigto, 3 sidoo kale godka ugu dambeeyo ah 1. sidoo kale waan ka laabanaynaa sida kii hore aan uga laabanay ee all clear key ayaan taabanaynaa. kadibna waxaan taabanaynaa shift 4. markaan rabo inaan isku dhufto ama afartii xisaab fal marsiiyo matrix A iyo matrix B. matrix A wuxuu igu kaydsan yahay number 3, matrix B na wuxuu igu kaydsan yahay number 4. number 3 ayaan taabanayaa, kadibna waan isku dhufanayaa, calaamadda ku dhuf ayaan taabanayaa. afarta xisaab fal kii aad rabtid adiga waad isticmaali kartaa. sidoo kale waxaan taabanayaa shift 4 si aan u helo matrix B. number 4 ayaan soo taabanaya iyadana oo matrix B ah. kadibna labadii matrix waa isugu kay dhufsayihiin equal ayaan taabanayaa. waxaana ii soo baxday matrix-ka cusub oo ah 17 7 iyo 16 iyo 6. sidaas ayaa ii soo baxday markaan isku dhuftay matrix-ka. okay, haddana waxaan gelaynaa sida matrix-ka transpose loogu sameeyo. waxaan taabanaynaa mode key, kadibna waxaan dooranayaa number 6 oo matrix ah. kadibna waxaan dooranayaa number 1 oo matrix A ah.
kadibna waxaan dooranaynaa orderka oo ah lambar 5 2 by 2 adiga nambarka ay rabto ayaad orderka u qaadan kartaa matrixka aad gelinayso orderkiisa ayay ku xiran tahay mar walba okay matrix A waxaa noo soo baxday inuu la mid yahay afartan waa rowga koowaad rowga labaad oo ah sidan tirada ayaan gelinaynaa waxaan gelinaynaa 2 sidoo kale waxaan gelinaynaa 3 sidoo kale waxaan gelinaynaa 1 iyo godka u dambeeya oo ah 4 okay all clear key ayaan uga laabanaynaa kadib waxaan taabanaynaa shift 4 kadibna marka aan rabno transpose waxaan dooranaynaa number 8 oo transpose ah okay matrixka aan rabno in transpose lagu sameeyo ayaan taabanaynaa shift 4 kadibna matrix A ayaan xogta kusoo kaydsanay number 3 ayaan taabanayaa bracketka ayaana xirayaa kadibna equal aan taabanayaa waxaa noo soo baxday matrixka transpose markii lagu sameeyo 2 1 3 4 okay intaas ayaan maanta kusoo ekeynaynaa casharkeena 6 waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan